leska dhaafo ma leska dhaafo qabiilkan ma leska dhaafo ma leska dhaafo ma leska dhaafo qarhowgan ma leska dhaafo ma leska dhaafo ma leska dhaafo Ahmed Madoobe ma leska dhaafo ma leska dhaafo ma leska dhaafo doorasho dadban ma leska dhaafo ma leska dhaafo ma leska dhaafo khaliijkan ma leska dhaafo warar kalmaanow maanta macallin maxamuud baa yacazume oo dhuusmareen ma u socotaan war macallin maxamuud laftiisaba xasan daaro wees baa casuumaan la yiri warteesi walaagi goroor laga galaa fuud laga gala faday haddii san roobo casuumaadka kaasasiin kuweeli wir macallin maxamuud siin kuweelo yahay waare xad ka rabtaa سلامينا شيخين محمودا سلامينا بعد إنا سلامت واحق شيخ محمود أو عبد الله عريف تفسير كقرآن كأيان إذا عدها رنك ودلقستا ورياضة موالنتين قبيل هل الدايو وقرح هل الدايو وقليج هل الدايو تيلو الدايا سوقر شياشي قرابك إيضانها ماهن ما بحطة يا فيانك إسكاشتا قرح ليدي ورلانكو يوني ما إسكا أقلقو لانكو تكورس لهذا ما أريني أو بيرو قدنين قرن سوبسنين مركاسا ما إليا وربير فلو ويكاربتا دا ويكاربتا خرش ويكاربتا وحول بيكاربتا وحل بيرتا قبيل وحوق في أنمالها إيجار لباتن جيروها كاوكاو لا ميلو كوي متادو جيدنا بيكا أم كارب كاذا كهرقو فاي رير هبلان أهي وكوليه وريا عن بيرانو ويبيري ورمانتا وقامية بيش العادة عالمك جيمس إسوان يوفديو هقامني يا كسمايا عادي ما لو جيمس إسوان وإنا آيو وريا دفع جيمس كوكا ستمجوك تدي ندقايسو اللي ما وحي بدلك جوغينا مانتا كسمايا عادي نايقونا ورمغرابا لغا شيك ساو كسمايا كستادا لما لهن وركسمان قادنا كسمايا كساك ويديان فضلا كشو بأيه وركسمايا بدبادة غرنا كسو بحدي ما لو ما نولال إيا نوادا تاكتاي ورداد مغناتيني وحال رباطات كيسكو هاي دورسيد جبلان إن ميلا سوكينو وريا جبلان اسكو هايستي odayaa joogay iyo niman kula dhagani anugu adaga waxaan ka sheekiyay xala markuu fiqo u tagay sababtoo ah fiqo meeshuu tago waa lagu kala tagaa wali waxyadii lagdameene yay ku leefina kaleexo wali waxyadii lagdameene yay ku leefina kaleexo war wasiirkii dawladda awada Omar oo ah musharax madaxweynaha Jubbaland wariye Baafo wuxuu ii sheegay asagoo uliisa wato inuu Kismaayo aadayo oo Kismaayo wali ma ula lagu dagaalamaa war Jubbaland Etoobiyaankii tagay maxay sheegeen war waxaan idin weydiiyay doorashada Jubbaland wuxuu wasiirka arrimaha guduhu inta u tago madaxweynaha xamar ugu soo diri waayay sidii xaaf ishiisa laga gartaa ushiisa lagu dila war anigu waxaan leeyahay waa tuu galmudug joogay iyo jawhar iyo baaye waa tuu Puntland jaba culus jeeyuhu suray Jubbaland khilaafkii hadduu jaanta sii dhigay jameecooyin wadawaal oo tood u kala jeeda oo jeenan baasoo caba dhaliyay jaaja war Cabdirashiid Xidigo shalay Kismaayo ka wuxuu yiri markii madaxweyne la ii doorto toosan buu u fariisanaa yiri war xidig war kama haysida wuxuu yiri nin waliba suu raba hadii laga yeelayo aniguba mar horaan madaxweynaha Soomaaliya noqon lahaa horaan waxa loo yiri bursaliiti bajiinimo bees lahaynin mukubashalayo wariyada reer kalamaan war ma haysiin hees cusub soo baxay xaw yaada heesku soo dir qarashka soo dir qarashka soo dir wan ku dooranayna ye soo dir bando waa runta gacnaan dufan lahayn waxmad duugaan eedo ilaa dhalay musuqmaasuqa in kaan kugu dhacday war waxa la yiri ninkii keligii garama laga ma gar helo ninkii keligii ordana laga ma dheereeyo nimo wax tareena la yiri rumigiis kal way war lanka kano maahmaadi inka ku dheeloy lang mogdo ka danfirigi ino danfirigi usiiska aale dadkana ma argo wayaan aleeri war maahmaayad looga dheelina waxa la yiri dil muraayada waday falxuma isdiidsi wareer kalmaana war ma haysaan sanad guurigi galmudug waraa bulshada ka socota ee u ambaliyay war ma haysaane heestii ugu beenta badnayd sanadkan waxa loo aqoonsaday hees galmudug loo qaaday war Axmed Sheekh Nuur miyaa sameeyay heeskaas galmudug waxa ay ku caan tahay maamul wanaagay ku caan tahay war waa beentoodana waxaan leeyahay galmudug waxa ay ku caan tahay khilaaf yaqaylay ku caan tahay war galmudug waxa ay ku caan tahay looma dhammaay ku caan tahay war heestaa galmudug nin Axmed Faaruq leeyahay baa bedelay wuxuu yiri galmudug waxa ay ku caan tahay oliya dirir bay
isdilay ku caan tahay dad iscunayay ku caan tahay iscayr-ayrsashay ku caan tahay cari iyo wirbay ku caan tahay carun qulqulayay ku caan tahay wadaad cartamayay ku caan tahay cawaanis dishay ku caan tahay eber iyo cidlay ku caan tahay anna waxaan ugu daray intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin adkay cunaan caane ku cawaan see loo celi karaa cawashirko waryaada reer kalamaan war wuxuu ma ogidiine ra'iisul wasaaruhu maanta wuxuu booqday ciidankii shalay ku soo dhaawacmay awdhiigle warheedhe ma u hambalyeeyey waxaad tihiin geesiyaal u dhaawacmay qarankiinna dowladdiinnuna way idin garab taagan tahay haddaad bogsataanna waxaan idinka filayaa inaad si degdega ugu laabataan halkii aad ka dagaalamayseen ee cadowga aad ku ceydhinayseen waxaa ka maqnay dhibkiina dhaafalaaniidhigi ma dhahay warnimayo waxaa la yidhi dhawuucuu dhayma waraabiye dhawaaq miyaa dhakhtarnaaqa dhawuucuu dhayma waraabiye dhawaaq miyaa dhakhtarnaaqa adiga laftaadaaba codkaagu cod dhaawac u eg yahaye xabaddu xaggee kaaga taal baandhooyow horaa waxaa loo yidhi dictor minhaa dabiib taqaan dameera dalqa iiga taa warnimayo waagii hore ciidamadu waxay lahaa jireen waardiye ka fog oo wixii socda intii istaajiya kaababoosta dhihi jiray waxay kaloo ciidamadu lahaa jireen sahan iyo ilaalo maxay yihiin marka ciidamadan mar kasta xeryahooda lagu soo weeraraayo war waxaa la yidhi askari mu xumaada haddaan taliyihiisu xumaan marka dhibaatada waxaa u sababa ciidan kastoo la soo weeraro taliskooda wax lagama weyddiiyo war adinku maxalaad dhalateen dalka iyo dawladdiisa xog kama haysaan miya madaxdii iyo xafiisyadooda lagu qarxiyo lagu weeraraanba waxba layska weyddiine ciidan xeradiisii lagu weeraray see wax laysaga weyddiinayo adinku ugu xiiqaysaan ciidamada dalkow way hurdoonayaan ciidamadii dalkow way mashquulsan yihiin ciidamadii dalkow way mirqaamayaan ciidamadii dalkow war mashaacdo kaloo milatariya miyaa timid war kuwan waddooyinka taaganoo samaacadaha shitiyo waardiyaha ma arka miya maya waxaan arkay waardiyaha geemka ciyaara dagaal baa lagu jiraayey ciidanka hurdow toos waryaal hees ma taqaaniin dhegaysta aabbe madaxuu xooshiyo hooyo xihan asaayiyo dhallinyaro xanuunkii guracyadu xakaarshaad u tihiin xijaab iyo xirsi lagu ilaalashee milatari xasuusnow war saas maayna waxay ahayd adinkaan arligeenna idiin idmanee na ilaalsha ammaanka allah bixiye war waxaa la yidhi dhulxow roob ka dhiba dhagaxna dhunkooshaxow ka dheefa oboy ambar dhafanaanta sayti awlaada dhulku ka aruuridamay mooshiidiya war dadku si ay isugu filaadaan waa inay golayaashii deegaanka samaystaan deegaan baxday ubax dilaacday war degmo kasta si ay maamul u yeelata golaha deegaanka la dhiso deegaan dhisto danihiin gartaa hadday golaha deegaanka iyo guurti lagu biirsho tala noo gorfeeyaan bulshada tanuma gaartiin hadduu meel wada joogo dadku waa iswarsadaa waxna waa isla garsaaye dantannii wadareed iyo golo maamul degaana ma wakiilo karnaa war heedhahaya gobolkan banaadir in maamulkiisa la soo doorto oo golayaal deegaan uu yeesho waa muhiim laakiin haddii saas la sameeyo madaxtooyadu xaggee ka helaysaa lacag ay siyaasadda ku kala maarayso oo kaambeynada ku kala fuliso war haan iyo hortaba arabtaan qayliisdaana arabtaan isugayliisdaana noo dhiso wala yaaqay waryaa golo deegaan haddaan la helin dadku xaggee ka helayaan maamul toosan golayaashii deegaanka in la doorto weeye war deegaankeeda ay ku taallaaye naga taga hadda dhis adigu maama hadda dhis war isamay kullu fariiq dil hal la doorto waa la doorto